Spoken English Book, Unit 1, Lesson 6, Sentence. Waxaynu guda jirnaa buugga Spoken Englishka. Unit 1 cutubkiisa koowaad. Lesson 6 casharka lixaad. Casharkan waxaynu ku baran doonaa sentence, jumlad. Jumlad waxay tahay ayaynu ku baran doonaa. A sentence is a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation, or command. Waa maxay jumlad? A sentence jumladu is a set of words. Waa xirmo eraya ah. Waa koox eraya ah. A group of words weeyaan. That's complete in itself. Iskiis u dhammaystiran. Jumladu waa inay ahaataa mid iskeed u taagan oo dhammaystiran. Macno la fahmi karana leh. A sentence is a set of words. Waa koox eraya ah. That is complete in itself. Si iskeed ah u dhammaystiran. Typically, sida caadiga sentencesku containing wuxuu ka kooban yahay a subject and predicate. Subject iyo predicate. Waxa weeyaan subjectiga oo ah fal sameeyaha iyo predicate oo ah falki ama ficilkii. Kuwaasoo markaa conveying gudbinaya ama xambaarsan a statement warbixin caadi ah. Waa affirmative caadi ah. Question su'aal ama interrogative. Exclamation waxyaabaha dadka ay la yaabaan. Calaamatul cajaa'ibka. Or comment ama amar. Jumladu intaasay ka kooban tahay afartaa qaybood. Waa statement caadi warbixin caadi ah. Question su'aal. Exclamation oo wax la yaab ah. Iyo comment oo ah amar. A sentence is a set of words marka. Waa set eraya ah. That's complete in itself. Iskeeda u dhammaystiran. Typically containing sida caadiga marka waxay ka kooban tahay subject and predicate. Waa fal sameeyihii iyo ficil ay ka kooban tahay. Conveying a statement kuwaasoo sida warbixin caadi ah, question su'aal, exclamation la yaab, or comment amar. Look at this simple example. Bal eeg tusaalahan fudud. Look at this simple example. Sentence waa jumladii. Waxay ka kooban tahay subject iyo predicate. I speak English. Aniga waxaan ku hadlaa Ingiriis. Inta waxay isku tahay sentence. Laakiin waxay ka kooban tahay subject oo I ah, predicate oo verbka speak ah ayay ka kooban tahay. Jumladu labadaas waa in laga helaa. Subject iyo predicate. Kan wuxuu noqonayaa object waa falku dhicihii. Laakiin muhiimadda waxaa weeyaan subjectiga inay ka kooban tahay. Sentence ay raahday inay ka kooban tahay subject iyo predicate. Marka guud ahaan waa sentence waxaa laga helay subject oo I ah iyo predicate verbka oo ah speak. The above example sentence and jumladan tusaalaha ee kor ku xusan is very short. Aad bay u gaaban tahay. Of course dabcan a sentence jumlada can be longer. Noqon kartaa mid dheer and more complicated. Aad u adag. But laakiin basically as Ian there's always a subject and a predicate. Waxaa sal u ah in had iyo jeer ay leedahay subject iyo predicate. Kinds of sentence. Noocyada ama types of sentence noocyada jumlada ay ka kooban tahay. Sentence wuxuu leeyahay 4 nooc. Waxa weeyaan declarative, imperative, exclamatory iyo interrogative. And afartaas ayuu ka kooban yahay. Mid ayaan u sharxi doonaa. Waa declarative sentences,
imperative sentences, exclamatory sentences, iyo interrogative sentences. And declarative waa midda caadiga ah, statementiga warbixinta affirmative-ka ah. Imperative waa midka commandiga amarka ah. And exclamatory midka calaamata cajiibka ah. Interrogative waa question. Ka hor usoo sheegnay kuwan waa isku mid isku macno weeyaan. aynu ku bilowna marka declarative sentences. Sentences which make simple statements are called declarative sentences. Declarative sentences waa maxay? Waa sentences which make sameeya simple statements warbixino caadi iska fudud are called waxaa lagu magacaabaa declarative sentences. Examples are it is raining, roob ayaa da'aya, oo warbixin caadi ah affirmative ah. The child is going to school, and cunuga wuxuu u socdaa school. I get up early in the morning, waxaan soo toosaa xilli hore aroortii ama subaxdii aroortii. I like reading, waan jeclahay ama waan ka helaa wax aqrinta. Intan waa maxay? Declarative sentences weeyaan. Declarative sentences may be positive, affirmative, or negative. Marka fiiro gaar ah, declarative-ka wuxuu noqon karaa jumlad positive caadi ah ama mid negative diidma ah. Sentences which give a positive or affirmative sentences are called affirmative sentences. Sentences jumladaha which give bixiya a positive or affirmative waxa loo yaqaano warbixinta caadiga ah nuxurka caadiga sameeya are called waxa lagu magacaabaa affirmative sentences. Waa jumlad warbixin caadi ah positive ah sameynaysa. Tusaale, he speaks English, isaga wuxuu ku hadlaa Ingiriis. Waa positive sentence ama affirmative. I have been to Canada, waxaan jiray ama aaday Canada. oo warbixin caadi ah oo positive ah. Sentences which give a negative meaning kuwana waxay weeyaan kuwa negative ah. waa jumlado na siinaya warbixin negative ah are called waxaa lagu magacaabaa negative sentences. Jumladaha negative-ka ama diidmada ah. Tusaale, she will not listen to me, ayadu ima dhegaysan doonto. She shouldn't ama she should not hate anybody, waa inaysan qofna nacin ayadu. Marka jumladaha nooca loo yaqaanaa negative. Kuwana waa maxay? Kuwa kore ama kuwa sare waa affirmative ama positive sentences. Kuwana waa negative sentences. kullin waxay isku yihiin declarative sentences. Marka iyaga noqon kara positive ama negative. Interrogative sentences. Sentences which ask questions are called interrogative sentences. Jumladaha loogu talagalay su'aal weydiinta waxaa lagu magacaabaa interrogative sentences. Waa question, su'aal weeyaan. Tusaale, what's your name? Magacaa. Where do you live? Xagee ku nooshahay? Who's your father? Waa kuma aabaha? Can you solve this problem? Ma xalin kartaa dhibaatadan? Marka jumladaha noocaan ah waxaa la yidhahdaa interrogative sentences. Waa question. Imperative sentences. Sentences which express orders. Jumladaha muujiyo amarka oo kala ah command. Awaamiirta caadiga commandska amarka ah waa orderka ah. Requests and codsiyada. Advice waanada ama naseexada or suggestions soo jeedinta ama tala soo jeedinta are called waxaa lagu magacaabaa imperative sentences. waxaa ka mid ah tusaalooyinka marka leave this place at once. Mar qura ka dhaqaaji goobtan ama ka tag. waa order ama command, waa amar. Get lost. bax weeyaan, tag. hadda waxay ugu jirtaa get lost qofka in si xoogaa looga ceeriyo meel. waa order iyadana. Please help me. fadlan i caawi. waa request. waa codsi. work hard. dadaal aad u shaqay. waa advice, waano weeyaan. Let's go for a walk. aynu iska lugayno. waa suggestion, soo jeedin weeyaan.
marka jumladaha nooca waxa la yidhahdaa imperative sentences ama command waa amar. Exclamatory sentences which express some strong feelings or emotions such as joy, sorrow, regret, surprise, wonder, etc. are called exclamatory sentences. Jumladaha muujinayo some strong feelings and dareen xoogan ama emotion such as sida joy farxadda, sorrow murugada, regret shalaytida, surprise layaabka iyo wonder waxyaabaha cajiibka ah iyo etc. iyo wixii la mid ah are called waxaa lagu magacaabaa exclamatory sentences. What a marvelous sight! What a marvelous sight! waxaa la isticmaalaa goob qurux badan markaad aragto. waxaad leedahay alla maxay tahay goob cajiiba qurux badan. Sight hadda waxay ugu jirtaa meelaha xiisaha leh quruxda badan. hadda aragti keliya ma aha. How beautiful the flower is! alla qurux badana ubaxu. alla muxuu yahay mid qurux badan ubaxan. Hurrah! Hurrah! We have won. Alas, she's dead. Hurrah! waxaa loo isticmaalaa farxadda. waxyaabaha markaad guulaysato kale la isticmaalo farxadda ah. Alas waxaa loo isticmaalaa murugada. She's dead. alla way dhimatay weeyaan.